Halkan waa wadada weyn ee B9, gaar ahaan qaybta u dhaxaysa Fare iyo Sare Hinde ee bariga Mandera. Waxay ku jirtaa xaalad aad u liidata, taasoo caqabad ku haysa gaadiidka iyo rakaabka isticmaalaya wadadan. Xilli galabnimadii shalaytaan safar ku marnay wadadan, waxaan la kulannay gaadiid xamuul oo saacado ku xayirnaa halkan. Gaari rakaab oo la soconay ayaa isna halkan galay, waxaana rakaabkii lagu qasbay inay degaan si gaariga loo riixo loona sii wado safarka. Maanta, darawallada iyo gaadiidleyda adeegsada wadadan ayaa sameeyay iskaa wax u qabso, ayagoo isku dayay inay si ku meel gaar ah u hagaajiyaan meelaha aadka u daran ee burburka. Waxay ku shubeen carro iyo dhagxaan si gaadiidleyda ay u gudbaan halkan, inkastoo dadaalkaasi uusan xal waara weli keenin. Darawallada ayaa sheegaya inay ka rajo dhigeen in halkan la hagaajiyo iska badaaya laami, ayagoo xusay in dayactir hore lagu sameeyay wadadan bacaadka aysan wax isbeddel muuqda keenin. Bulshada iyo isticmaalayaasha wadada B9 ayaa iminka ka rajo sugaya dowladda dhexe iyo dowladda county-ga in si degdeg u farageliyaan arrintan, maadaama wadadan ay tahay halbowlaha isku xira deegaanada bariga Mandera, isla markaana muhiim u ah ganacsiga iyo socodka bulshada. Ibrahim Nur Abdurrahman, County-ga Mandera.